السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل أنتوا ونكسن داودي الملك أود نقل سعتان ومركلة إيه برنامج كني الرمه بالشدة أود ناقبرتين تضبط كي بمر إن ندين كسوق بينه تيفيق قرنك حرمتي سب مجال لندن برنامج كالرمه بالشدة داودي السنة دين كقبلنا قادنا يبا وحنكو سوق قادنا تضبط والبوحيا بهان سلنا هاي تدوين هاي فائدين يعني تضبط كان وحنكو سوق قادنا دونا دلاد بريتش دلاد أي كم يدوبين ورد غير سومالي لان أكون دقن دلك UK هذا برنامج كوحنا قال قيب قادنا يقار كمد دلداسي أو أي كمد يهين علي حس عبد جامع إيو أحمد حسن داود وكحجة إيو عبد الله أبو بكر عبد الله واضح داود يلا دام برنامج كي ستوس أوجد قلنا وحنكو بالله يا علي حس أو لنا عبد حجة فدية سؤالها أنا حاجة كبالله قرما أيها الأساسي دلد بريتش سومالي لان كونسل إياسي أساسي ها waxaa xusub mudan marka hore inaan iyaro hore dhaca aan sheego sidii intii aan la asaasin daladan ay ku boobeen ururada Soomaaliland marka hore waxaa ka horeeyay urur la yiraahdo Somaliland Global Unity oo runtii ku yimid dareen baahi loo baahday magaranayay meelo badan oo banaan ururkaasna waxaa runtii asaasay nin aan saaxiibnahay oo maxay ahayd la yiraahdo Maxamed Deer guri iyo aniga oo markaas aan kadibna ula tagnay asxaab kale oo nagu dhow oo markaa fikirkii uu si balaadhay sida maxay ahayd Xasan Nuur Alaalo kale Cabdi Baaw oo kale Councilor Cabdi Fataax oo kale runtii way batay markaa dadkii markii ururkii aan sameynay waqtigaas waxa laga joogaa muddo sanad iyo bara ayaa laga joogaa kadib markaa waxaanu aragnay in Somaliland Global Unity ay shaqaysay in muddo ah markay dhowr bilood shaqaysay waxaan markaa ogaanay fikrad ah inaanu soo keenno dhammaan ururada Somaliland ee ka tirsan waddanka UK oo anagoo markaa ku hanweyn inaanu ka dhigno mid adduunka oo dhan ah sababtoo macnaha ay siiyay waxay ahayd global صح mid adduunka universal oo kala noqonaysa sidii magaranaysa loo mideyn lahaa si waddanka hore loogu qaban lahaa marka ururada aan soo keenay la wada xiriirnay markaan soo keenay runtii fikradihii waa la rogrogay way soo yimaadeen marka waxay noqotay inay noqdaan ilaa 22 urur oo marka dalada ku boobay kadib waxaan sameynay mahada shacab bixintii aan garansay daafurkii dalada British Somaliland Council marka ay isugu yimaadeen ururadaas oo dhan taa laftigeeda waxa xusud mudan British Somaliland Council ما هي مركي ورثة مركا الله صو هذا القاضي واحد شرتي لابد يكون يسقعكي إن درين لفت كذا وكصوب حياة كاس أو حاجة نين عن صاحبنا هاي أو الله يرحمه عبد الرحمن عليل أو مركا قدوميها SSUK ها لفت كيس وذي مركا درين كاس يكوتشري إنه صار صار لكن سه وقتي ومقارنة سه مناسبة أو يدتك يسكين لها أيام مركز أساس أوجد أنا هدي لكن واحد نقطتين يمكن مدة إلا سجال بلاد أو سنة كل دواب مالها وين قرنصا إن بريتش مالنا كونسل أي هركشة فهمتي فهمتي لو حين تأكد بيانا أفهيانك وهالكم فردية عديناه هي كل أرمها يجسي فرد دوبان يوحيا بها قبضتي يمكن مثلا يصير وشقيسه صح كون تاسفل وأنا هذا هذا ما سنته واضح داود الولي waxaan ku guda jirnaa barnaamijkeena arrimaha bulshada oo marti noogu yihiin dalada British Somaliland Council oo sidaan idin sheegayba ah dalad ay ku bahoobeen ururada reer Somaliland ee ka howlgala dalka UK waxa dhinacayga midig fadhiya Cabdullaahi Abu Bakar Cabdullaahi oo isleeyahay su'aashii hore in Ali Xiis weydiiyay in aan sagana weydiiyay sidoo uu arko Cabdullaahi أهلا وسهلا مركو هلا كسر دو أربعة بالشدة إيو تيفيك قرن كمان. أرتم هاد كارا فرقا عادي عسكرة يعني الله سبحانه وتعالى أرتم هاد كارا عسكرة إن لو ما هاد قديو واحد شرف يعني حسيتي تيمانتين كل فردي استوديه تيفيك قرن كقارة يوروب قيبتي لندن هذه فرقا أنا هلا وحن كلها عادي مع سنتها فرصة قالية هذه سيمانتين عن كهلا إن بريتش سوماليلاند كونسل haddii aan guda galo su'aasha aad weydiisay ahayd daladana sida ku bilaabmatay iyo fikirkeeda xaguu ka yimid kulli saaxiibkay Cali baa ka sii hadlay inta badan arrimaha laakiin se arintani horta waa arrin ku jirtay qof reer Somaliland dhaladkeedu oo arintani waa arrin ka soo jeesamaysay in dadka la mideeyo dad badan way jireen oo kulli oran kara anagu waan ku tala jirnaa arrintan aanu sameeyno
laakiinse arrintani waxay dhalatay baan qabaa waqtigii gruubo badan inay isku tagaan oo siduu cali ka dhawaajiyay baa ay ka mid yihiin Somali Global Unity, Somaliland Global Unity oo iyagu inama isku tagayo go'aansaday in ay marka hore arrintan global ka dhigaan arrintiina waxay u soo babadhigeen dhowr ururo Somaliland ka jiro ururkayga uu ka mid yahay dadna waxaan isla go'aansanay markii aanu dhowr shir isla galnay bal sidii loo magac bixin lahaa ee daladan magac ahaan loo siin lahaa magacyo badan baa soo maray magacii lagu go'aansaday waxay noqotay maadaama hadda la joogo Ingiriiska in horta marka kelmadda hore British la qaato Somaliland isna leeyahay marka magacaasi waa la isla rurugay magacaas aad markii dambe la isla qaatay kullu magacyo badan saaxiibka uu sheegay magac inuu loobi kara laga yaabo waxaana dadka magacyadana la loobay naga raali ahaada laakiin fikradan waa fikrad soo jireenahay ilaa iyo 3 sano ugu dambeysay Cabdullaahi sidaan ognahay ururo soo jiray waqti dheer bay ahaayeen maxaa sababay inay waqti xaadirka amidoobaan horta marka hore mideyntu way jirtay waxa laga yaabaa dad badan dalkii Somaliland wax ku dhisantay waa dadka qurbaha jooga taasi waxa jirta mashaariicda badan xataa Somaliland ka hirgashay in dadka qurbaha jooga in maanu baabka lagu taagayo lagu qaadaan baa laga doonayaa meel hebla u baahan in la caawiyo meel abaara ka dhaceen marka dadkii kullee dad baa jiray xilqaam jiro dadka wax ku soo ururin jiray oo jiray maadaama baahidii Somaliland ay noqotay baahi aan la dabooli karin oo de 2 qof ama 10 qof ama 6 urur isku tagayna dabooli karin waxa la go'aansanay bal hadda in la mideeyo ururada oo halkii kolba la caawimo baahan in la xoojiyo marka halkii hal urur uu caawin lahaa qayb kamid ah Somaliland in halka ururta gacan buuxda la siiyo oo la caawiyo iyaga oo de xaq ama dhaqaalaha noqoto ama cilmiha noqoto ama fikraha noqoto laga caawiyo baahidaas keentay in la daboolo ururadan isugu yimaadaan maadaama ururadan dhamaantood ay helayeen caawitaanka Somaliland صح muddadii ururkan jiray aan iraahdo daladani maxaa u qabsoonaad oran kartaa waxa si hirgeliyeen wallahi mashaariic badan bay hirgeliyeen ilaahay subhanahu wa ta'ala horta mahad gaar buu leeyahay waayo wuxuu noo fududeeyay arrintu hadday tahay arrin volunteer oo dadku ay iyagu gaar isku xilqaamayaan ilaahay hawlaha ku fududeeya daladan furitaankeeda ama shaacinteeda waxay dhacday bishii 3 March sanadkan ayay dhacday ururadii ku buuhoobeen xafladoon bay ka soo qaban qaabiyeen waliba waxaan mahad gaar ah siinay TV qaranka Somaliland oo isagu waqtiga xaadir u ahaa joogna u ahaa waliba mahad gaar ah siinay Cabdi Bacaw oo isagu ahaa dadkii daladan asaaska weyn ka soo qaatay dhisitaankeeda ama joogitaankeeda ama jiritaankeeda maalinta lagu dhawaaqay isla markiiba waxa laga dhawaaqay la xafladaha ay de ururadii meesha ku buuhoobay diyaarka u ahaa saddex xafladood ba diyaar u ahaa xafladaha waa soo galeen waxa kamid ah xafladii ugu dambeysay naafadii SNM lacagta loogu ururinay waxa taa dalada qayb kamid ah dhul ugu deeqay naafadii SNM in looga dhiso dhakhtar mashaariicda kale hirgaleen waxa kamid ah mashruuc ugu weyn hadda aan ku dhex jirnay mashruuca xawaaladaha sidii loo badbaadin lahaa xawaaladaha oo Barclays Bank loo dagaalami lahaa inuu ka noqdo gacanka uu ka qaatay xawaaladaha Soomaalida qaybta waliba Somaliland maadaama aan nahay ururada Somaliland hirgala arrintaas dhibaato weyn bay u saameynaysaa dalkeena Somaliland saad qabto waan ku soo noqon doonaa su'aasha Cabdullaahi waan ku soo noqonaa aad iyo aad u mahadsantahay Axmed dalada British Somaliland Council waxa sidoo noo sheegay hay'eenkiinuba waxay ka howlgashaa dalka Ingiriiska ma jiraan meelo kale oo ka baxsan gudaha dalka UK oo wax ka qabateen ama aad ka howlgashaan waad mahadsantahay walaal horta marka hore waxaan mahad celinayaa TV-ga qaranka iyo shaqaalihiisa sida fiican ay noo soo dhaweeyeen ay noogu siiyeen fursad inaan sharaxno daladu waxa ay tahay ama sida ay u aasasantay ama dadka isu yimid ururada isu yimid haddaan soo noqdo su'aashaadii way ka hawlgalaan meelo kale oo macnaha dalada loo sameeyay waa ururo isu tagay ururadaas waxay ka kooban yihiin haddaan ku siiyo oo kale dee aan kuu sharaxo for example oo kale naafada qaar baa u shaqeeya darbi jiifka qaar baa u shaqeeya agoonta qaar baa u shaqeeya caafimaadka qaar baa u shaqeeya waxbarashada marka waxa weeye of course gebigood waxay noqonayaan inay wadankiina ka shaqeeyaan halkana ka shaqeeyaan marka daladu way ka hirgashaa halkana way ka shaqeysaa iminka dad baa tegay oo ka soo noqday dalada madaxeeda ku tegay marka way ka walaal way ka hirgashaa haddaan hadalkaaga daba galo naafada way jiraan ururada caawinaya oo sidan ururka samafalka mujaahidiinta SNM oo kale laakiin wali waxaanan maqlin nagu cusub tan darbi jiifka goorma taasi hawl gashay xageysa ka hawl gashay darbi jiifka say u caawisaa horta taa waxa fiicnaan lahayd maadaama ay ururo isu tagay yihiin urur baa noo qaabilsan
ururkiina dadkii ka socday maanta lama joogaan laakiin waxaan ka warqabnaa maadaama anagu daladiinahay hogaamiyaashoodii inay tageen ay maxaa dhul u soo qabteen maxaa dhulkii la doonayay sidii loo fangarayn lahaa ama looga dhisi lahaa wixii iskuula iyo wixii ay uga baahdaan ciyaalku marka taa intaas aan kaaga sheegi karaa waayo urur isu tagayaan waxani urur baa qaabilsan markaa maaragtay carruurta darbijiifka marka I know anigu waan ka warqabaa inay tageen dhulma soo maxaa la soo siiyey rabaana inay u tacab galaan saacadaan ku sii daro saaxiibkay Axmed qaybtan darbijiifka tirada nagu cusubtay waa ururada ku muhiimada ka mid yihiin dalada British Somaliland Council maalintii ururka lagu dhawaaqayna waxa sharafna waa haydina madaxweyne ku-xigeenka Somaliland oo nagala joogay maalintii la shaacinay xafladda qodobadiisa ka sheegtay waliba qayb la hadla ka qaateen ballan qaadeen inay caawinayaan darbijiifku kelmadda darbijiifka dad badan way ka soo horjeedaan baan qabaayo kullee dad badan la isticmaalin laakiinse waa xajira inay yihiin habla iyagu isan xilqaamay markay dalkii arkeen ku arkay dhibaatada dalkii aysato go'aansaday inay darbijiifka carruurta joogtay inay wax u qabtaan ama iskuul ha u dhisaan ama boarding house sameeyaan fikradaasna waxay ahayd inay la yimaadeen dib ugu soo noqdeen dalkan Ingiriiska degan yihiin xaflad qaaran ururisa oo qabteen oo madaxweyne ku-xigeenka saan kugu sheegay uu ka soo qayb galay ilaahay khayr siiyay waxa jirta dad mataqaana oo ku galo jecel inay dalka Somaliland dadkooda caawiyaan oo ka mid yahay xildhibaan Nacnac oo mahad gaar halkan salaan gaar marka hore ka salaamay salaan gaarana leeyahay salaan qaali ee guddoon marka hore marka labaadna waxaan kaaga kugu hambaleynayaa sida quruxda badan ee ilaahay ka tirsaasay aad dhulka ugu soo hibeysay dadka isku xilqaameen darbijiifka dhulka ugu soo dhisaan taasoo dhulka soo siiyay Somaliland inay ka dhistaan iskuul carruurta darbijiifka mataqaana looga caawiyo marka waa qaybaha mashaariicda British Somaliland Council ay qabatay ka mid tahay arintaas صح Cabdilaahi taladan yaa maalgeliya xagee ka heshaa maalgalka xageesa ku tiirsan tahay maalgalka horta de kulli dadkan reer Somaliland ee Ingiriiska degan ayaa dadka talada maalgeliya talada ma maalgeliyaan mashaariicda u baahan marka in la maalgeliyo ay ma daladani walba dadka isku soo xiriiraysa tirada maxaa baahan ee baahida la qaban kara ay tahay sidaas ka dhawaaqay mashruuca naafada ee sanamta waxa mahad gaar ah la saaxiibkay Axmed Wayaak fadhiya oo isagu ah ninkii dhulka u hibeeyay in dalada looga dhiso in naafada ururka naafada ee sanam looga dhiso dhakhtar dadka rehabilitation dib looga caawiyo marka maalgashi waxa ka mid tahay taasoo kale waa maalgashiga dalada ay tahay waxa kale oo xusid midan dadka in dadka la hadlo lagu yiraahdo maxaa qaaraan loo baahayay yaa u baahan caawimaan dabeetana dadka ururada dib isugu noqdo yiraahdo okay urur walba maxaad keeni kartaa sidee baad maalgelin kartaa lacagtii la isku geeyo loo geeyo dadkii u baahan mashaariicda soo socdaan ay ka mid tahay hadii la naftan u daay ma ka heshaan dawladda Ingiriiska wax caawimo ah because magacan aad qaadateen British Somaliland Council waxaad ku bilowdeen Britishka waxa idinka soo galay ma jira oo gaar ah dalada ugu tala galeen may walaal way waxaan u jirin baa ku sheegay horta waxaan waa dalad organization ma aha de lacag dalban karo dalka u tii karo lacag baan u baahan waa dalad ay ku buuxeen ururadu marka 10kii urur walaalaha ee tacliinta u baahan ama 10kii urur labadii urur ee walaalaha ee waxbarashada ka shaqeeya ama kuwii ka shaqeeya darbijiifka iyaga ayaa gaar soo la xiriiro de lacagta soo qabsadaan anagu waxaan la caawinaa la sii xoojinaa oo aan garab qabanaa wixii caawimee loo baahan yahay ha noqoto qaaran ururis ha noqoto mataqaana de ama dhul bixin ama ha noqoto de sidii fikrad ku kordhisba ama haddaan ku raaciyo markay noqoto oo kale in xaflad la qabsato oo kale qasab aan ka qayb galina haday noqoto de qaban qaabadii la shaqayntii tigidhadii la iibintii organizationada inaan u qaybino in maxaa la tigidhadii iyaguna qof walba goonidiisa u soo bi marka dads waxay noqonaysaa caawimo weyn oo asdalad xoog loo saar hal urur kaliya xoog saari lahaa faa'iido ka fara badantii hal urur keeni lahaa caafimaadka oo kale marka tan loo jeesto waa marka qasab waxay noqonaysaa caawimada isu tagga keenaya iyo maxaa la wada shaqayn marka waxaan leedahay urur walba mowduuc uu keeno ururada kale way ku taageerayaan markaas oo kaasa la saaraya maxaa la dhahay mudnaanta la siinaya lana wada shaqaynaya oo la isku dayaa in as much as loo shaqayn intii la gaarsiin karayaan iraahday in la gaarsiiyo ee ah xusuusaar shaqo aan laga hakran oo voluntary oo aan de qofna uu soo macnaha wax ka doonaynin in halka loogu talagalay ay wada marto wixii laga soo saaray meesha Cabdilaahi waxa jirta sidaan ognahay Barclays Bank xawaaladii Soomaalida uu joojinaya inay macmiil u noqdaan ama ay la sii shaqeystaan waqti dambe daladiina sidee uga qayb qaadatay sidii loo badbaadin lahaa xawaalada walaal qayb la hadla baan ka qaadanay maadaama dalkii Somaliland ku dhisan yahay xawaalado inaan ahay waalidkii wax u diro ama dadkii caawin jiray ama de
dalkii Somaliland joogay shaqooyinka ahaa shaqo abuuris ay ka dhex sameeyeen inay shaqo ku dhex shaqeeyaan hadii uu Barclays arrinta go'aansado marka waxa dhacday in ay xawaaladu iyagu sameysteen dalad iyaga u gaara dabeetana markii aan arrinta maqalnay in aanu waqtan daladiinahay aanu arrintii mataqaanaa dadkii xawaaladaha la hadloon ku nidhi maadaama aanu ururada reer Somaliland matano waxaan jecelahay inaan arrinta qayb lahaad la ka qaadano si maxaana looga baahan yahay shirar gaar ah baan la yeelanay shirarkii waxay noo sheegeen inay u baahan hadda codad loo geeyo guriga laga xukumo dalka Ingiriiska ee Barton Down Street codadkaasina ay dadkii tusayaan dhibaatada ay gaarsiin karto qaraarkan uu qaatay Barclays Bank inuu xawaaladaha Soomaalida xiro anagu waliba si kul galan arrinta waxaanu sameeynay in aanu daladeeda dib isugu noqono anagu aanu teams ka soo dhex saarnay guddi la shaqeynaya daladaha guddidaas oo afar qof ka koobnaa oo lahaa mataqaanaa jeerkeeda iyo xiriirinteeda iyo dadkii mataqaanaa arrintan galay waqtigii rabadaantiina soo dhaaftayna way ahayd waxa sharafi maamuus mudan in aanu horta codad badan u soo ururinay de anagu aanan marnaba uga hakran laakiinse markii codadka la tiriyay 250 xawaaladood bay dadka laga xidhay caalamka oo dhan aan Soomaalidu kaliya tahay ama Somaliland ba ahayn xawaaladaha Soomaalidu sheegtaana 5 xawaaladood ahay maalintii codka la geenayay Barton Down Street codka la geenayay codadka markii la tiriyay waxa la yiri 250 xawaaladood waxay soo ururiyeen 25,500 cod anaga British Somaliland Council ahaan waxaanu keenay ilaa 6,000 cod marka codadka dadka Soomaalida laga soo ururiyay waxay noqotay si inoo sheegeen ilaa 13,000 cod marka maadaama aanu qayb reer Somaliland ay 6,000 ka qaadatay taas waxay ku tusaysaa qaybta la xalay mataqaanaa reer Somaliland ama daladan ay ka qayb qaadatay badbaadinta ama la dagaalanka Barclays Bank inuu arrinta ka sii qayb galo sidaa kumaanaan sii istaagina waliba shirarkii iyo go'aanadii oo aanan ka daba harin ama ha noqoto in MBAdii waraaqa loo qoro ama ha noqoto in ministeradii waraaqa loo qoro ururada wada midaysan waxaan hadda halkan ku hayaa warqadii aanu dirnay ugu dambeysay ahayd aanu warqad u dirnay ahayd William Hague iyo David Cameron hadaan lahaan dad British oo dalkan Ingiriiska degan dhibaatada xawaaladaas waxay saameynaysaa ama saameyn gaar ah ku yeelanaysaa dalalkan ka soo jeedno gaar ahaan Somaliland 13 jaalidood ayaa u qoray urur ayaa u qoray David Cameron waraaqda 22 kamid waa reer Somaliland marka taas waxay ku tusaysaa hamiyada gaarka ee British Somaliland Council ay saartay arrinta ayada ah kamana daba hadhanay ilaa arrintan ku guuleysano ilaa uu Barclays Bank qaraarkiisa ka noqdana arrinaan habeen ka saxnana ma hadana dalada British Somaliland Council nahay Brito kale maanta xataa Brito kale isniin waxaan xaflad ku leenahay Whitehall number 61 Whitehall oo arrinta lafteeda laga sii hadlayo dhibaatada Soomaalida iyo sidii istaraatiiji loo sameyn lahaa sidii loo sii xoojin lahaa arrintan iyada Barclays Bank kulli qaatiyaan buu taagay maalin buu kulli warqad baa soo dhacay meel ka timid aan garanay ama dad qof bay ka imanaysaa ama MB bay ka imanaysaa ama wasiir bay ka imanaysaa marka hadana dalada British Somaliland Council lahay qaybta ugu weyn ama mashruuca ugu badan ka qaadaneen xawaalada qayb lahaad laga qaadanay way kamid tahay arrintaas ana sida hadda noo sheegtay kama hadhayna ayaa tiri sidan u badbaadin lahayn xawaaladaha waxa soo sameeysan codad ama petitionkii bishii Ramadaan hadda ma maxay talaabadiina dambe ee ku caawinaysan xawaaladaha horta petitionku min istaagay ma oo sheegeen de waxa weeyaan saddex urur baa dalkan xukuma waa Labour iyo Conservative iyo Liberal Democrat waxa laga yaabaa in xisbi kaliya in la dabagalay laakiin anaga waxaan noo qorshaa saddex xisbiba aan la fadhiisano kun raahno waan idin baahanay hadda waxaan noo hirgashay saddex xisbiba alxamdulillah in aanu hadda British Somaliland Council nahay iyo waliba labada ururana caawinaya SDRF iyo SOS ay kamid yihiin ay fursad noo galiyeen inaan la fadhiisano saddexdii mataqaana waliba hadda aan jecelahay inaan saddexda conference ay saddexda xisbi qabsanayaan iyaan waxba waraaqa loo horseegno kun raahno qaraarka Barclays Bank ku gaaro waa qaraar aan hagsan ka noqdo waxa kale oo noo qorshaa xaflado oo ay kamid tahay Tanbari la qabanaya iyo xaflad weyn oo bisha 26keeda ka dhici doonto waqooyiga North London hadii la nafta noo daayo taas oo hogaaminayso MB-ga xaafadda Slim Featherstone ee ka soo jeeda xaafadda Wood Green iyo Hornsey iyo MB badan oo ka soo jeeda dalkan Ingiriiska ka soo qayb qaadanayaan taasna waxa ku tustaa culayska weyn oo saaran in aan ka daba hadhaynin taa waxa ku sii xigta xaflado kale oo la sii qabanayo kolba meeshii la tagay albaab loo baahan la garaacana daladan way heeganteen karaan laakiin saan ognahay David Cameron wuxuu yiri marka petitionkii loo geeyay ma bedeli karno go'aanka Barclays Bank waa hay'ad madax bannaan taasi miyaan aynan is oran karin xisbiga Conservative-ku uu sheegay already wuxuu ka qaban lahaa wallahi taa farqaanay ambassador moodey markii hore
laakiinse shir aanu jimcii dhawata galnay waxyaabaha kasoo baxay waan la yaabay mararka qaarkood markaan maqlay waxaa igu maqaalaa conservative-ku inay markii hore arrintan iyada ah ay kasii jeedeen laakiinse hadda markay maqleen arrintii laborka hogaaminaya inay yiraahdeen wallahi halkan waad ku codwaay kartaane maxaa go'aansaday marka waxa ahayd in laga fadhiisto berito inay ka fadhiistaan go'aankii laga gaaray laga sameeyay way baajiyeen shirkoodii waxay yiraahdeen bal horta arrin dambe aanu isaga soo noqono maadaama haddaan anagu daladan nahay ama labada urureen nala shaqeynaa saddexdaasiba aanu ku go'aansanay inaanu ka qayb qaadano oo albaabada garaacno waxaanu jecelnahay conservative-ka laftiisa hadda uu soo jeestay inaanu sii xoojino oo ku niraahno arrintani waa arrin idinkana ma taqaanaa idin saameynaysa annagana saameynaysa waayo waxa laga yaabaa inay codad badan u baahiyeen election-ka dambe soo socday 2015 ka dhici doona marka ayagu malaha leebar ka baqashahan ay nagu soo galay maqla marka hadda waa saan qabo warqadii David Cameron loo diray wax badan bay ka bedeshay صح أحمد sidoo noo sheegay Cabdilaahi idinka isxil qaamay inaad xawaaladaha aad badbaadisaan idinka wadanka u daneynaya iyo dadka xawaaladuhu iyaga laftoodu sidee idin la shaqeeyaan maxaa idinka xiriir sidee ah idinka dhaxeeya waad mahadsantahay horta intii badnayd ninkan waa dalada afhayeenkeeda intii badnayd afhayeenka ku sheegay waxa weeye organization-ka ay samaystaan baa anaga toosna la soo xidhay marka xawaaladaha lama xidhiidhin organization-ka iyo British Somaliland Council baa wada shaqeeya so far inuu sidoo ku sheegay waxa weeye de wixii aanu qabanay ee ahaa petition-ka sida waxaanu ka geysanay iyaguna maxaa la yiraahdaa in British Somaliland Council ay ugu soo talagaleen rabadaan bay ahayd way ogaayeen wixii aanu qaban karaynin oo aanu qabanay oo ahaa macnaha de inta daladan loo sameeyay macnaha loo sameeyay tahay in wadankan iyo dalkiiba labadaba loo hagar baxo marka so far waan sameeyay laakiin toos xidid gooniyoon loo leenahay daladaha kaligood ma jira organization ay sameysteen baan loo leenahay walaalo iyaga matala marka toos idinka iyo xawaaladuhu uma xidhiidhaan organization-kaas idin dhaxeeya haa mid iyaga ka wakiila gadigooda ay weeyaan oo de iyagu soo dhex saareen marka kaasaan anaguna toos la xidhiidhnaa iyagana anagana toos nala soo xidhiidhnaa waa tahay daawadayaal weli barnaamijka arrimaha bulshada ayaan ku guda jirnaa waxaa dhinacayga fadhiya sidaan idin sheegay xubno ka mid ah ururka ama dalada aan idhaahda ee British Somaliland Council Cabdilaahi haddaan barnaamijka kusii socono waxaan maleynayaa wadi ku dheeraaday caawa xafladan aad ka dhawaajisay 26 bisha aad qabanaysaan maxay ku saabsan tahay maxayse ku soo kordhinaysaa bulshada saan kugu sheegay hore xawaaladuhu waa 25 xawaaladood iyagu dhexdooda guddi bay ka dhex sameysteen ama waxay ka dhex sameysteen dalad ay ku bohoobeen anaguna maadaama aanu nahay dalad ay ku bohoobeen ururadu waxay noqotay labadeedana wada shaqeyno marka xafladan waxay noqotay in dadka meel wala joogaan bala la xiriiro dadkan go'aanka ama qaarka saameynteeda ku yeelanaya go'aankan baarkis qaadanayna in gaar loola hadlo xafadan deganahay gabadha matashay waliba uu gelinayo hoose waba gabadha iyadoo ma taqaana de saameyn gaar ah ku yeelan karta qaraarkan baaqil isbaan gaaray marka waxaan u qaansanay inaanu ku urgalno xaflad ku soo cusubno ku raahno Porto Somaliland ama Soomaalida xaflada kula joogta baro waliba u badan reer Somaliland adigana dhibaatada saameynta ay ku leeyahay karto shir baan la qabanay waxay tiri warniyo wata warqad baan naga caawisay alxamdulillah warqadii way dirnay waxa kale oo tiri waxaan jecelahay bal la kulmo jaaliyadiina anaguna hadaan maanta labadeeda dalado Soomaaliyeed xawaaladaha ee British Somaliland Council waxa xafladan isku aragnay labadan waan dadku soo bandhigno baahida loo qabo mataqaana xawaaladaha iyaguna ay nala arkaan oo mataqaana ay noqoto wax la sii xoojin maadaama xafladda Brita ay tahay si bilaamaso de muujad bilaamasa ay noqoto oo joojin tan 26 kuna noqoto tii weynada la sugu yimaanay dadkoo dhan MBiyada dhan mideynayay dadkii meesha dadkii ka soo shaqeynay noqonaysana xaflad laga aan halka ku istaagayna xafladu sii badanayaan oo kolba MBiyada xafladda degayn loogu tago la leeyahay anagu dad fadhiisanay manihin hadday noqoto ilaa Barclays Bank la hor istaago Barclays Bank laftiisa inaan la hadlo ku raahno xawaaladaha waan u baahanahay wax laga joojin kara maaha marka xafladani waa xaflad loogu talagalay in dadku isugu yimaadaan shacabweynuhu ka soo qayb galaan MBga xaafadda waa aragto de Soomaalida xaafadan degan iyo saameynta ku yeelan karto intaqaana xataa iyada election-ka dambe soo socday rabtay inay ka qayb gasho marka waxaan rabaa in xafladda ka faa'iideysano oo aan dadku ku niraahno dadka soo qayb gali kartaan soo qayb gal ugu dambeyntii barnaamijkeena waxa soo gaarnay gabagabadiisii Axmed maxaa dadweynaha ku daawanaya ugu baaqaysa
waad mahadsantahay walaal waxaan ugu baaqayaa haddaan u kala qaado laba horta mid waa xawaaladaha midna waa dalada dalada waxaan leeyahay dee waa British Somaliland Council waa dalad furan oo macnaha charity ku shaqeynaysa oo dee qofku uu gashanayo wax dadkiisa sida wax loogu qaban lahaa waa dalad furan qofkii ugu soo biiraya ama raba inuu dee wax nala qabto waa welcome waxaan oran lahaa xafladan la qabanayo 26 inay yimaadaan oo intii aan naga caawin kareen naga caawin ka soo qayb galaan waxa kale oo raacinayaa tan xawaaladahu waxay saamaysaa dadka geeska Afrika oo dhan ayaa u badan iyadoo dunida loo kala diray lacagtan dadka geeska Afrika oo dhan marka waxaan leeyahay dadka geeska Afrika jooga xawaaladaha arrinkeedu maaha arrin quseeya dad gooniya ama meel gooniya ama xawaalad gooniya waa anyone doonaya dadkiisa inuu wax u diro ama biil ha noqoto ama waxbarasho lacag lagu diray ha noqoto ay saameynaysaa marka waxaan leenahay taana nagu soo caawiyo xoogana soo saara caawiyo that's the only way aynu wax ku qabsan karno wada jirka marka wada jirka inaynu taxalo xawaaladahan ugu macnaha dagaal gallo tan British Somaliland Council ay tahay mid open oo qofkii doonaya inuu wax ku soo biiriyo ama dee wax nagu fikrad iyo talo iyo wax qabsi wax walba aan diyaar u nahay marka waxaan leeyahay welcome everybody aad iyo aad baad u mahadsantahay Cabdullaahi waxaad adiguna ugu dambeyntii dadweynaha ku daawanaya ku leedahay dadweynaha waxaan ku leeyahay horta aad baad mahadsantiin marka hore salaam baan hawadiin soo marinaa meel kastoo joogto marka labaad waxaan leeyahay TV-ga qaranku aad buu mahadsan fursad qaali weyn siiyay waxaan kaloo ku sii darayaa leeyahay horta daladan waa dalad Saax Axmed ka dhawaajay waa dalad u furan reer Somaliland oo dhan aqoon-yahanadeeda culimada diinkeeda wax garadkeeda dadkooda waa dalad u furan qof alaaliya qofkii Somaliland rabeen uu qabto waa madal u furantay inay ka soo qayb galaan way furantay inay wax alaaliya wax fikir ku soo kordhinayaan ha noqoto inuu waa diyaar baa loo yahay nolosha shaqeeyo taxawaaladana kulli Axmed Banteedi bandey ka dhawaajay laakiin waxaan oran lahaa arrintan iyada ayaan laga aqranin iyaan loo nasanin ilaa intaynu ka guul ka gaadhinina ama Ilaahay guul naga siinayna aynu foojignaano wixii macluumaad dheeraad ah u baahan nagala soo xiriir xageygana diyaar baan inaanu siino website baan leenahay website-ka way nagala soo xiriiri karaan xagii xawaaladana waxaan leeyahay kulli waa arrin nado saameynaysa inaan uga fadhiisanin waxqabadkeeda aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin kulligiin waa tahay daawadayaal waxaan soo gaadhnay gabagabadii barnaamijkeena arrimaha bulshada oo ka daawaneyseen TV-ga qaranka xaruntiisa magaalada London barnaamijka arrimaha bulshada waxaa marti noogu ahaa dalada British Somaliland Council oo ay ka socdeen علي حيس عبد جامع أحمد حسن داود يولي عبد الله أبو بكر عبد الله أنت أخو كل مدة برنامج كان لمدة أنا جمال حسن أو قبت فرسمة النوفدي يولي ومرتضي إذا شرفت له وحنا ذيك جت الناس ذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.